السلام عليكم انتجرال وعشركينا maanta qaybta sideedaad qaacidadeena meeshaan ku qoran tahay sida u jeedin maanta waxaan dhiga doonaa qaacidadan waxay tahay okay qaacidadan waxa waaye adigoo haysatid function u la dhaho ama wuxuu rabo noqon karaa laba function oo kala duwan macnaha saa integration ugu samaysid waa inaan qaacidadan isticmaasho qaacidadana say ku timid waa su'aasha siday ku timid bal aan helno waxay ku timid adaa xasuusatid derivationka hore waxa u dhahay derivation integration waa way kala duwan yihiin product ruleka adaa xasuusatid wuxuu ahay hadaa xasuusatid u lagu dhuftay v oo derivative ah ku samaysid mid tahay u derivative ah ku samaysid lagu dhuftay v lagu daray u lagu dhuftay v aad derivative ku samaysid okay marka haddii aad labadan dhinac aad ku sameyn integration intaan dhammays la socdaan ama mid walba ku sameyn kara okay haddaad ku samaysid waxay la dhigan tahay labadaba isku baxayaan derivation integration waxa kaliya soo baxa waxa waaye u lagu dhuftay v waxay la mid tahay waaye integral u derivative lagu dhuftay v lagu daray integral u lagu dhuftay v derivative marka haddii aan rabo inaa formulkan helo kana geeskan kala geena ayadoo lamid ah u lagu dhuftay v laga jaray integral u derivative lagu dhuftay v waxay la mid tahay integral u lagu dhuftay v derivative okay marka midka geeska bidixda geeleed adigay ku qoosaysaa laakiin caadi ahaan hal formula iska isticmaal okay kana isticmaal isku mid koreos jawaabta heli okay bal hadalkayga aan yareeyo aan example koowaad aan ka shaqeeyo waxaa haysataa kasoo qaad x e to the x gx waxaa ku dhahay ka shaqeey cashirka marka saa ugu shaqeynaya waa su-aasha haddii aad fiirisid inta ma isticmaali kartid cashirada hore substitutionka camal isticmaali kartid sababtay tahay ma ogaa kartid haddaad dhahdeed u waxay la mid tahay x du dx na haddii aad dhahdeed macnaha ma heli kartid ama haddii aad dhahdeed kasoo qaad u waxay la mid tahay e to the x du dx na isla meesha ma fahanta marka substitution ma isticmaali kartid marka waxaa ku qasbannahay qaacidadeena cusub inaan isticmaalo okay qaacidadeena cusub bal aan soo qaadano ma waa soo koobiyena si ay ugu fudaato okay qaacidadeena cusub waa tana okay bal aan fiirino u waxaa ka dhigi karnaa functionkeena koowaad oo ah x haddaa derivation u ku samaysidna waa x derivative waa hal v derivativena waa ognahay waxay tahay waa e to the x mafahant v waa maxay integration ku sameyne
integration e to the x haddaa ku samaysid waa isla e to the x isma bedelayo marka waxaa haysana la gelinaya bis wax kale maaha waxaa haysana keliya gegelina ayadoo wax kale ahayn marka integration x e to the x dx aa dhahday waxay la mid tahay u lagu dhufto v u-dana waa x v-dana waa hal laga jaray aan dhahayna waa hal laga jaray aan dhahayna integration ku samey u derivative waa hal igaraal noqda adaa sameeyey u waa x v-na waa e to the x laga jaraa dhahayna integral u derivative waa hal lagu dhuftay v v-na waa e to the x dx jawaabteen waxay noqonaya x e to the x laga jaray integral dx oo jawaabta lamida x e to the x laga jaray e to the x plus c okay because isma bedelayo e to the x haddaa integration ku samaysid waa isla functionka keliya okay bal aan bilcaks ka dhigo maxaan dhici lahay haddii aan dhihi lahay for example haddaa dhihi lahaa hadda kan waxaa dhahay u kana v v derivative haddii aa bilcaks ka dhigi karo waa isku meesha sooma haddaa dhahda integral x e to the x dx wuxuu la mid yahay integral e to the x x dx okay labadaan lay kala bedela bis meeshaan ku dhufashaa taalo okay haddii aan dhaho hadda u waa e to the x and u derivative haddaa ku samaysidna e to the x v okay haddii aad dhahdeed v derivativena waa x haddaa v integration x haddaa integration ku samaysid waxaa hele hal loo qaybiyo labo x square marka anakoo qaacidadan isticmaalayna waa xasuusatiin e to the x x dx waxay la mid tahay u lagu dhufto v u-da waa e to the x lagu dhufto v waa hal loo qaybiyo laba cilad xagga farsamada naga haysato x square laga jaray integrationka haddaa samaysid haddii aa integrationka samaysid waxay noqonaya u lagu dhuftay v derivative u waa e to the x u derivative waa e to the x lagu dhuftay qaacidadana maxay ahayd u derivative lagu dhufto v u derivative waa isla asigi labadaan isku mid u derivative waa e to the x lagu dhufto v v-na waxaa waaye hal loo qaybiyo laba x square dx marka haddii aad fiirisiin waxa meeshaan aan ka helnay waxaa helnay integration aad u dhib badan kan weligiis ma istaagayo ilaa ay aakhiro waa ka shaqey kartaa leh bis marka tricksiga waa maxay weliga adigoo qaacidada isticmaalayo mar walba u ha kuu noqdo x ama kuu noqdo mar walba ka dhigo x mar walba ka dhigo adiga waxyaabahan dhammaa kara camal mar walba wax fudud ka dhigo v derivative inaad ka dhigatidaa fiican mar walbo ln x waxyaabahaas markii dambe adigaa fahmi doona insha allah
marka videogeena alaana ku ekeenayna sidee daqiiqada aad ugu badan ku mahadsan tahay